هالدواء جوداني إلا قادتاي وحيك شو يدنا عروس لقادتاي أتاقود كناني قاري أشاد قدادتاي أتاقود كناني قاري أشاد قدادتاي بالمحاد لو جبل بيتي بالمحاد لو جبل وحقبي أبهودي حلقودا أو جرشايرو وحقبي أبهودي حلقودا أو جرشايرو الدورير جابا جابوبو قرباكي سنح مهدو وحقبي أبهودي حلقودا أو جرشايرو wacyigelinta aan bulshada u soo jeedinayno iyo qoysaska burbura ee qurbaha ku soo batay maalinta ka dambayso ma la isdhihi karaa waxaa qaldan aas-aaska ee qoyska markuu abuurmayo oo guurkiiba meel qaldan laga bilaabaa ma laga yaabaa in la dhaho arintaas wallaahi marar badan way jirtaa laakiin inta badan horta guurku mar walba waxa la yiraahdaa Soomaali waxay ku maamada oo god gacanta la galiyo waxa kala kulmayso ma ogid labada qofood banaanka markay wada joogan laba qofood oo israbta waay laakiin runta markay timaado dhaqankii iyo ilmihii iyo dabeecada kala gedisan mar walba way imaanayaan khilaaf because meesha waxa imaanaya mas'uuliyad culus ah imaanaysa markii qurbaha la joogana maba ku sii jirto waliba qaasatan ragga Soomaalida badanaaba ma yaqaanaan dhaqanka wadamadan inta badan yaala wiilasheen waxaan ku soo korinaa in raashinka loo kariyo in dharka loo dhaqo in wax walba loo qabto marka iyagiina sidii la qabsadeen marka looma baahnaan leenahay in sidaas wax lagu koriyo marka Yurub la joogo ama qurbaha la joogo familka labada hooyada iyo aabahaba waa in hooyo la wada naqdaan taas ma dhihi karnaa yes mid loo baahan yahay aaba waxay tahay in aad noqotiin hooyo iyo aaba kulli aad wada noqotaan hooyo oo hawshii la isla qabto because hooyada meel loo iryanaya waxay aadaysaa shaqo ama waxay aadaysaa waxbarasho adoogi sidoo kale shaqo ama waxbarasho labadiiba marka guriga isku waqti imaanayaan ama wayba soo kala hormarayaan saacado yar marka waa qofkii soo horeysa in guriga hawshii ka sii qabato ama ilmihii soo daad guray mar walba waa in hooyo la wada noqdo meesha isku duubnaan barnaamijka gaari iyo gurboodkeed ayaan caawa jaanis u helnay in aan dad badan la kulanno oo rag iyo dumar ah waxaan aad ugu faraxsanahay in ragga ay caawa igala qayb qaadanayaan Fahad Ciise ayaa ila joogo Fahad barnaamijka gaari iyo gurboodkeed waa barnaamij loogu talagalay in looga hadlo dhibaatooyinka qoysaska Soomaaliyeed ku haysta wadamada qurbaha burburka markii la yiraahdo waxa u soo joogtay ama laga yaabaa inaad ogtahay burbur badan oo qoysas badan ku dhacay dhibaatooyinka sidee looga badbaadi karaa maxaa sababay oo aas u ah bismillah horta waa su'aal fiican haddaan ku hormaro waxa la dhihi jiray sidee looga badbaadi karaa oo badbaadada oo ina tahay wax muhiim ah guriga inuu sii taagnaado waxa isleeyahay hotoreeto in ninka ragga booskiisa oo taagnaado qofka xaaska laga ahna in iyadana booskeeda taagnaato nin Sheekh Mustafa la dhahayo aad aan jeclahay aan hadda kor waxaan ka dhigaysto wuxuu yiri dawlad laba madaxweyne kama taliso gurigana laba madaxweyne kama tali karto gaaladan wax walba maamul iyo waxay u suubiyeen iyo kala dambeyn iyo ku xigeen guriga laakiin waxa la yiraahdaa wada simantiin qofkii dumarkiina waxa la yiraahdaa waxa rabto suubi ninkan waxba kuma dheero marka haddii ninka ragga oo dareemo inuu gurigan aaba ka yahay waxa isla wax badan ay ka caawinay
gabadhana iyadana ee dareento gurigan inay hooyo ka tahay ee odaygeeda ka dambayso dabcan wixii xaqa ee ugu dambayso wax kastoo igu raac qalab ee qasab ma aha wixii wanaag oo asigooda haddii ku raacdo wax badan ayaa isbedelayo taasaan aaminsanahay aniga waa tahay burburka iyo dhibaatada jirto yaa sabab u ah ma dumarka mise ragga lama dhihi karo marba kolba waxay ka imaadaa qofkii markaas xaaladda taagan waxa sababay marmar dumarka kaliya eeda lama saari karo raggay ka imaan kartaa dumarkay ka imaan kartaa laakiin muhiimadda waxay tahay in la isku sabro oo qofka kale markuu qaldan yahay inuu yiraahdo war waa qaldan tahay qofkaasna uu ku istaago bashiir gacmo dheer from Singapore ayaa isagana maanta nala jooga oo barnaamijka gaari iyo gurboodkeed nagala qayb qaadan doono bashiir waa maqlaysay Fahad waxa uu ka dhawaajiyay adigu ma ku raacsan tahay burburka qoysaska Soomaaliyeed ku haysta wadamada qurbaha in labadaba hooyada iyo aabahaba sabab ay u noqon karaan mise hooyada kaligeed ayaa dusha ka saaraysa inta badan qurbaha marka ka hadalno waxa sabab u ah dumarka sababta dumarka sabab ugu waxa waaye maanta 80% bareesharka wuxuu saaran yahay dumar marka la fiiriyo iskooladii marka mas'uuliyadda la fiiriyo ilmaha xataa waxa moodaa ayaka inaysan wax badan aysan markaas dulqaad badan muujinin oo marka Soomaaliya la joogay ragga 90% awood lahaay hadda marka inta la yimid ninkii iyo xaaskiisu waxay noqdeen laba qof oo awood qaybsiya laba kaaray haystaan laba wax baa haystaa inta badan waxa moodaa waliba wadanka aan ku nool especially Denmark nimankii naagaha markii aad aragto naagaha Daniska ka adag nimanka marka shir la taga xataa aan bafo ardag moodaa meelaha iskoolada ninkii oo fadhiya waxa arkay naagti inay ka karti badan tahay caadiyan gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku daydeen taas oo kale waxa la rabaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan ma dhihi karno burburka ka hadlayna burburka waxa sababta u ah oo inta badan keeno gabdhaha ha laakiin waxa kale oo jirta mahmaha iyadana dhahayso ma ogi inaan sixi doono in kale dhabarka inta iiga jiri lahaayeen dhulkaas ka joogaan miya maamada dhihi jiray inta tun ku jiro toobka daad sanadaan hadii tubta inta la daadilay sidee ka waran taas xilligeed ma joogna hadda waayo markaan Soomaaliga joognay ay ahayd inta tubta iiga jiro toobka ma tubta hadda sanadaan waayo waxa kale aqalta إدفع الله هذا قلده لكن هذا ما جوجنا واحد جوجنا هالكي دبع أو أنت أتقول شو وكحنون بديها طبعا أتقول الصومالية because كواس أيك ودن كودي جوجان ويكوريان بقول ترى أفر أظن برين برهايان لكن ما أنت كان كلمة عبرت في الصومال أدوك عبرها قرآن كير كعبرت أدوك عبرها أديكو إندوكويا أدو إندوكويا هو يدي عبها مركا إنه hooyadana 10 indhood ay furto aabahana 30 indhood oo furo ayako fiiraha ilmaha halkan kaas ku ma karaan waa tahay bashiir gacmo dheere aad ayuu u mahadsan yahay Sacdii Barfiido barnaamijka gaari iyo gurboodkeed maxaa kelmad ah oo aad dhihileed waxaan dhihi lahaa familkii isqaba iyo sida u dhaqmi lahaayeen walaalkii ayaa mataqana ka hadlay aniga fikir ka duwan aan ka hadlayaa wali waxaan soo jeedinayaa hooyooyinka iyo aabooyinka labadaba haddii uu calafka dhamaado hooyada iyo aabaha colaadii ay ku kala tageen ma ahan inay ilmaha saameyn ku yeelato aabaha oo caruurtiisa mar walba aaba ayuu u yahay hooyadana mar walba hooyay u tahay labadan shala markay isbaranayeen ilmaha meesha ma joogin ayaga ayaa keeneen sidaas daraadeed xumaan ayaga ka dhaxayso in aan ilmaha lagu beerin ee isla korsadaan oo mas'uuliyadda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala faray ay ka soo baxaan dhulka aan joognana ay muhiim u sii tahay waliba waa tahay aad ay u mahadsan tahay Sacdii Barfiido fanaanadeena Maandeeq Nuur Garaash ayaan jaaniskan kaga faa'iideysanayaa barnaamijka gaari iyo gurboodkeed maxaa kelmad ah oo aad dhihi lahayd horta magaca gaari iyo gurboodkeed yaa sameeyaan ku dhihi lahaa magacaas waxa iska leh walaalkeen Cabdishakuur KBB cameraman-keena isaga noo keenay ma sha Allah barnaamij aad u qurux badan waaye aadan ugu faraxsanahay barnaamijkan ka qayb gal caawa aniga waxaan dhihi lahaa asabr jamiil qofka markuu sabro meeshuu rabo waa gaaraa hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed ilmaha in loo sabro ayagana ay isku sabraan guriga hadii la wada sabro in Ilaahay malaa'iga soo dejiyo oo guriga qeyr ku dhamaana carruurtasna nidaam ay ku korayaan laakiin hadii aabaha iyo hooyadaba ay sheedaan ma raacaan ka faa'iideysto oo carruurtii beelaha noqdaan carruurtan Ingiriiska lagu laayna waa aragteen Mareykan lagu laayna waa aragteen Danishka carruur baa lagu laayay waa aragteen xabadaa la wataa kuwan ka soo cararna xabada ahayd meelahan joogno qurbahana xabadaan la joognaa soo been iyo gangster marka waxaan ilahaa familka wax dhisa
hooyo iyo aabbaa wax dhisa wadankeena ma joogno marka inaad ku dadaashaan aabbaha iyo hooyada inay isku dhaganaadaan intaasaan micnaha okay siraad ayaa markan rabaa in kelmadeeda ay tiraahdo aad baad u mahadsan tahay waryaanaga qaaliga sahro iyo dadka sharafta loo meeshaan isugu yimid aniga oo ah Siraad Yuusuf Siyaad oo u soo safray walaashay qadro iyo fanaanada qaaliga inaan meeshaan isku aragno aan u imid wadankan waxaan idin leeyahay kelmadan gurbood gaari iyo gurbood waa kelmad waxaan u maleynayaa taaban kartaa dadka ama dhaqankanaga saan u maleynayaa waxaa laga yaabaa in dadka qaar ayna fahmi karinba kelmadan aad sheegaysin laakiin inaad fasirtiin baa wanaagsan markii laga hadlahayo horta aad baad u mahadsantihiin waxyaalaha ugu qaalisan ood ka hadashiina waxaa weeye oo dadku ka hadlaan waxa weeye bulshada ugu qaalisan markaad bulshada ka hadlaysin waa wax fiican oo lagu dayasho leh ku dayasho leh warka inaan sii badiyo ma ahan aad baad u mahadsantihiin waa barnaamij fiican waa barnaamij inaan ku laga hadlo ama lagu daysado wanaagsan de Soomaaliya waa iska hadalnaa meel kasta waa ka hadalnaa laakiin waxaan rabnaa inaan hadalka la fuliyo guriga hooyo aabbo ka aasmay hooyada haday ama odagu tago reerkaasu lug baa go'day lug baa maran maskaxda ciyaalkuna waxay ku xiran tahay labada waalid oo isla joogta waxaa jirta iskuulo badan oo hadda wadanka aan jooga ka hadlo dhaho hadii labada waalid ay kala tagaan ciyaalka waxbarashadooda xataa waa xumaanaysaa markay gabadhu u samarta ninkeeda way iska imaanayaan waxa waa doonay sabab garwaaya jiro hooyooyinkii aabbayaasha wadamada qurba joogo hooyooyinku way dhiban yihiin wax kasta ayagaa ka mas-uul ah aabbayaashana waxa waaye dibay u leecaan aniga kulley waxaan kula dardaarmi lahaa hooyo iyo aabbo hooya xanuun badan sideedaba hooya xanaaneyn jirta caruurta iyo reerka iyo hadduu asiga aabbaha xoogaa leecan hala toosiyaan dhihi lahaa ayadoo ilmaha loo fiirinayo wax kasto samarkana hala badiyo waan dareemi karaa xanuunka aniga hooyaan ahay hooyooyinka waxaan kula dardaarmayaa inay samraan dowladaha horumaraba waxaa dhisay naagay ahay priority loo siiyey marka wadankanagu waa burbure dumarow wadanka burbura caruurta dabaqa caruurta koriya caruurta la dabaqa daawadayaal barnaamijkii gaari iyo gurboodkeed caawa waa la isugu tagay Saciido Shuuke oo aad wada taqaanaan waxay u dhaqaaqdaa arrimaha dumarka iyo ciyaalka ururo Soomaaliyeed oo magaalada Aarhus ka tirsanna madax ayay ka tahay barnaamijka gaari iyo gurboodkeed Saciido marka hore ku soo dhawow waxaan filayaa inaad la socoto barnaamijkaas sidee u aragtaa waa arrin loo baahan yahay waanu soo dhaweyneynaa waanu ku faraxsanahay barnaamijkaas oo aad bilowday aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana mid loo baahnay waqtigeedana wuu taagan yahay ama waxaaba dhihi karaaba wuu soo dhaafay waqtigeedu mar hore loo baahnaa